magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa saaka si toos ah uga furmay xalfadda furitaanka soo bandhigida buugaagta Book Fair Laascaanood. maalintan caalamiga ah ee Book Fair Laascaanood soo bandhigida buugaagta ayaa waxaa ka soo qayb galay wufuud loogu talagalay jawiga iyo waliba xalfadda ayaa waxa u socotay sidii loogu talagalay iyadoona shacabka reer Laascaanood si aan loo kala xarin ay u soo dhaweeyeen wufuudi ilaa xalay iyo waliba gelinka dambe shalay soo gaadhaysay gobolka Sool ee magaalada Laascaanood. wufuud fara badan oo ka kala imanayay dalka dibadiisa gudihiisa iyo waliba dalalka Afrika ayaa ka soo qayb galay iyadoona wufuudan iskugu jiraan aqoonyahan hal-abuuro suxufiyiin rugcada siyaasiyiin qaybo kamid ah iyo waliba aqoonyahan. maalinta caalamiga ee Book Fair Laascaanood oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigay magaalada Laascaanood ayaa waxay noqotay tii ugu heerka sareysay waxaana maalgelinaysa isla markaana suuro gelisay hay'adda wadaniga SVO oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. maalinta bandhigga buugaagta ee Book Fair Laascaanood oo ku beega 10 bisha 12 2019 ayaa maalin caalami ah waxaana ka soo qayb galay kooxaha dhaqanka iyo waliba hidaha iyo dhaqanka iyadoona meesha ay ka maqneen gamaanka faraska oo asal iyo xarig u ah dhaqanka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa la dhisay goobo ay ku sharaxan yihiin ama ay ku xardhan dhaqanka Soomaaliyeed iyadoona Soomaalidu ay waxyaabaha fardaha iyo hidaha iyo dhaqanka u leedahay ayna meesha ka maqneen. sidoo kale waxaa dadka lagu boorinayaa isla markaana lagula talinayaa in la dhiirigeliyo qorayaasha lana soo dhaweeyo marti sharafta. dhiirigelinta qorayaasha buugta ayaa waxay tahay in buugta laga iibsado iyadoona buugtayo iyo waliba taqale oo meesha goobta lagu soo bandhigay mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo gobolka Sool iyo waliba shacabweynaha reer Laascaanood ayaan u kala harin waxaana marti sharafta amaaneen shacabka reer Laascaanood soo dhaweyn.